33 sano kadib ayuu dalkeenu mar kale hantay kursiga madaxweyne ku-xigeenka golaha loo dhan yahay ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa gaar ahaan fadhixileedka 75aad waxaana xilkaasi loo doortay danjiraha dawladda Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Ambassador Abuukar Daahir Cusmaan Baalle madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjira Baalle ugu hambalyeeyay mas'uuliyadda culus ee loo doortay kadib kulan madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda kula qaateen hanaanka fogaan aragga waxa uu safiirku madaxweynaha uga warbixiyay fursadaha dalkeena ugu jira guushan iyo sida ay inoogu suurta gashay madaxweynuhu wuxuu safiirka uga tahniyadeeyay guushaas oo ah mid u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed faahfaahinta taariikhda Soomaaliya ee UN-ta waxa ayay iska wareysteen madaxweynaha iyo safiirku oo safiirku madaxweynaha uga warbixiyay intii mar ee Soomaaliya ay ka mid noqotay golahan oo booskan oo kale ay qabatay dhanka kale ergada xafiiska Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa gudbiyay codsi dalkeenu ku dalbanayo oo tartamida xubinnimada golaha ammaanka ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa sanadaha 2003-2004 wuxuu kaloo sheegay safiirku in aynu iyadana u tartami doono oo safaaraddeena UN-tu ama ergadeena UN-tu ay gudbiyeen codsigii ka mid noqoshada golaha amniga ee qaramada midoobay sanadka 2023-2024 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in guushani tahay mid u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed waxa uuna ku bogaadiyay ergada dalkeena u jooga xarunta qaramada midoobay dadaalka ay galiyeen xaqiijinta guulaha dalkeenu ka gaaray hay'adaha qaramada midoobay insha Allah waa guuleysanaynaa Soomaaliya waa soo noqotay magaceedana waa soo noqday adiga iyo dadka la midka ah runtii waxaad ku leedihiin runtii dadaalkiina iyo shaqadiina aad geliseen in sumcadda kor loo qaado runtii abaal aad ku leedihiin marka waa mahadsantahay madaxweyne waa mahadsantahay wasiir noo soo duceeya ilaahay inuu nala garab galo hawsha xool culus weeye waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono hawsha shaqada galiteeda hanashada mas'uuliyadaha culus ee ka dhaxeeya qaramada dunida waxa ay sawir ka bixinayaan awoodeena dawladnimo iyo dib u soo noqoshada hanaankeena diblomaasiyadeed ee guunka ah Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka Villa Soomaaliya.